السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عن إذا لهانتين بسونا دوادا كسو دوادا W3 tag وchannel عصب إن شاء الله أنا قلت لك علي إن كوبحيه كورس لما يسترن أو كسابسن web development أما software development أما web programming أما سيدا website ده low code قريه وفسده وفهم كره waxaa laga yaabaa inaad interest gareynayso oo aad rabto inaad barato ama aad noqoto web developer hase yeeshee aad ku wareertay oo su'aalo badan aad isweydiinayso oo meel aad ka bilowdo aad garan laadahay insha Allah aan isku dayo su'aalahaas qaar ka mid ah inaan ka jawaabo su'aalaha ugu badan ee dadku ay isweydiiyaan waxa ka mid ah khaasatan dadka interest gareynaya rabaan inay bilaabaan ama anugu aan isweydiin jiray markii aan bilaabayay tolo web development ku shaqadiisu sidee tahay haddii aad barato waayo wax walba marka barnaamij ku fiicay inuu hadaf iyo goal inuu ka dambeeyo web development statistics la sameeyay oo wasaaradda shaqaalaha ee wadalka Mareykanku ay sameysay waxay sheegeen in fiilasha kale waxbarasho ardayda markay ka soo baxaan shaqadoodu waxay korodhay bay yiraahdaan 6% to 8% hase yeeshee web development waxay korodhay 15%. That's really big number. waa number aad u weyn oo waxa waliba la qiyaasay inay mar walba marka dambaysa ay sii badato waayo fiilkan wuxuu ku xidhan technology-gan waxaan ognahay xawaaraha ku socda inta uu leeyahay also dadku waxay isweydiiyaan web development ma college baan u aadaa mise school ama jaamacad mise waan isbaraa sababtan waxay tahay survey la sameeyay waxa lagu ogaaday dhamaanba dadka u shaqeeya kambaniyada waaweyn ee tech giant-ka sida Facebook, Google, YouTube, Twitter, Instagram, Amazon ku dar, Snapchat, you name it, dhammaanba kambaniyada waaweyn ee technology-ga hadda hogaaminaya dadka u shaqeeya oo la yiraahdo web developers ama software developers and 70% waa dad self-taught ah oo iyagu isbaray. Self-taught waxaa la yiraahdaa qofku markuu aqoon asagu isbaro asagan u aadin school iyo jaamacad toona marka 70% hadii ay yihiin dadka kambaniyada u shaqeeya self-taught that means dadka technology-ga u shaqeeya oo dhammaadad iyagu isbaray waa laga yaabaa inaad isweydiinayso tiro hadii aanu aan isbaro sidee bay certificate la'aan iyo shahaado la'aan aan ugu shaqo tagaya dhammaanba kambaniyada waaweyn hadda waxay drop gareeyeen in ay dadka shaqo taga ku xidhaan certificate ama shahaado ama degree. They don't really carry a degree-ga kambaniyada waaweyn oo ma keer gareynayaan waxay evaluate gareeyaan waxa weeye experience-kaaga waxay kala ogaadeen dadka college-yada ka soo baxa ama jaamacadaha ka soo baxa iyo dadka iyagu isbaray inay labada aqoon badan yihiin dadka iyagu self-taught-ka loo yaqaan iyagu isbaray sababtan aan ku sheego college-ka markaad aad tagto waxa laga yaabaa manhajkooda ama curriculum-kooda ay dadku wax ku barayaan meeshaad ka bilaabayso ilaa markaad graduate gareyso wixii aad dhiganayso waxa laga yaabaa in mar hore la dejiyay manhajkaas oo aan la bedelin technology-ga khaasatan software development every day waxba isbedela by the time aad graduate gareyso ood ka baxda jaamacadda ama college-ka waxay u badan tahay aqoontii aad baratay inay out of date tahay oo out of dated ay tahay oo aan suuqa shaqo looga baahnayn laakiin qofka asagoo isbaray internetka ku jira ee waqti badan u hayo waxa laga yaabaa maalin walba inuu la socdo wax walba. That's why kambaniyadu ay u drop gareeyaan in ay ku xidhaan degree ama certificate waxa laga yaabaa inaad aniga ay aaminin dadka kale web developers oo dhan dhageyso kambaniyada waaweyn they really don't care degree iyo certificate inaad sidato college markaad ka soo baxdo ama jaamacad ka soo baxdo warqadani it doesn't translate inaad skills-ka shaqo looga baahnaa inaad diyaar u tahay inanka jaamacad ka soo baxay ama college ka soo baxay iyo inanka isbaray asagoo ku soo shaqeeya experience leh haday wada shaqo tagaan ka experience kale I'm sure in kaas la qaadanayo oo kaas la hormarinayo waayo they care the experience field-kan web development ama software development waa practical markaad interview-ga gasho ama company u shaqo tagto kaba soo qaad Google ama Facebook interview-ga ay ka qaadayaan interview-du waxay u badan yihiin theory ama hadal ama su'aalo kala weydiiyo laakiin web development interview-gu wuxuu u badan yahay in lagu yiraahdo code qor waxoogaa code lagu weydiiyo iyadoo la eegayo experience-kaaga
marka runtii su'aashaas ha isku wareerin uma baahnin inaad college u aado oo 20000 ama 12000 ay ka khasaaroodo ama waqtiga dheer ee lagu aad iskuulka dhiganaysa oo ka khasaaro uma baahnid su'aalaha kale dadku isweydiin waxa kamid ah haddii aqoonteeda aan barto oo aan isbaro suuqeeda shaqo siduu yahay anoo certificate sidan oo intaas oo kun qof oo iskuul ka soo baxay ama college ka soo baxay joogan sidaan u ciriirsan karaa shaqo ugu heli karaa runtii fiilkan waa fiil technology ku xidhan technology-guna wuxuu ku socdaa speed aan la qaban karin oo la gaari karin oo aad u sareeya marka dadka technology-ga suuqa technology-ga looga baahan yahay iyo dadka web developerski runtii shaqo iskuma laha mar walba waxa weeye waxa badan baahida dadka developerska loo qabo also waxaad kaloo niyada ku haysaa website-ku mar walba inuu sii kordho baahidiisu sii kordho mooyaan inuu hoos u dhaco lagama yaabo as long as adduunyada uu internet jiro web development waa loo baahayay website-ka imkaad qof client u samayso ama customer ah 10 sano ka bacdi still wuxuu u baahan yahay some improvement lagu sameeyo waayo qofka businesskiisa markuu kordho khasab website-kiisuna waa inuu improvement lagu sameeyo wax lagu daro marka as long as internet uu adduunyada jiro web development-na waa loo baahan yahay waa daruuri mar walba muhiimadda web development uu leeyahay waxa kaaga filan company kasta ama dukaan kasta ama adigaaga imkay daawanayo meheradaada laga yaabaa dad baa ka shaqeeya waqti go'an inay shaqeeyaan baa laga yaabaa 8 saacadood oo 12 saacadood laakiin website-kaagu wuxuu ku shaqeeyaa 24/7 24 saacadood ku shaqeynaya 7 maalmood weekly waayo maadaama online tahay daqiiqad kasta waxa laga dalban karaa website-kaaga marka waa shaqaalaha ugu shaqada badan ugu kartida badan kuguna daacsan dukaankaaga ama kambanigaaga marka muhiimadaas uu leeyahay waxyaabaha kale uu ku fiican yahay waxa kamid ah waa fiil aad isbari karto adoo fiil kala bartay kaba soo qaad business baad baratay ama IT baad baratay ama nursing waa fiil still you can transition to web development waad soo geli kartaa there's no any requirement wax requirement oo kugu xidhan as long as aad basic-ga taqaano computer-ka aad fahmi karto uma baahnid wax kale waad baran kartaa مثلا anoo kale markaan wadankii joogay Hargeysa waxaan baranayay business waxay u badan tahay su'aal ka dhigay waliba taas fiilkan marka aad fiilasha kale waxbarasho aad dhamayso ama aad ka baxdo business baad baratay ama nursing baad baratay markaad graduate garaysay waxa laga yaabaa isla markiiba kuma fikiri kartid business furo waxaad ku fikiraysaa markiiba qof u shaqee and the reason is markaad nursing ka soo baxday ama business si aad u furato meel waxa lagaaga baahan yahay inaad space karaysato ama haddii aad lahayd meel baa lagaaga baahan yahay qalabkii nursing oo kale labkii waa lagaaga baahan yahay marka haddii aan budget hore aan ku diyaarsanayn waad ku khasbantahay inaad qof kale u shaqeyso ama company laakiin fiilkan web development ama qofka web developer-ka ah as soon as aqoonteeda aad dhamaysato you can become your own boss markiiba company-gaaga aad samaysan kartaa computerkii guriga ku yaalay iyo internetkii ayuunbaad guriga qol ka mid ama meel ka mid mis dhigato aad website samaysanaysaa businesskaaga halka ka bilaabi kartaa waxaan arkay dhalinyaro badan ama dad badan oo Soomaaliyeed oo ideas intay keenaan one product sameynaya dadkaas oo kale hadda tahay aqoontii web development hadda leedahay markii waxa uu samaysanaysaa productiga website gurigaagana businesskaaga aad ka bilaabaysaa also waxa sameyn kartaa wax loo yaqaan freelance adoo gurigaaga jooga aad client u shaqeyn kartaa aad u sameyn kartaa website-yadii waxaad kaloo sameyn kartaa adoo gurigaaga jooga company u shaqeyn kartaa waxay yiraahdaan haddii aqoontaada ama profession-kaagu uu yahay web development ama software ama si guud technology uu yahay distance doesn't matter masaafada ama inta uu ku jira company-gu carqalad kugu noqon mayso waayo waxa laga yaabaa company adduunyada geeskeeda kala ku yaala inaad gurigaaga jooga inaad u shaqeynayso marka runtii web development waxyaabo badan uu ku fiican yahay and I really recommend you inaad barataan waana fiil aqoontiisu ay internetka ku jirto waxa kaliya aad u baahan tahay waa laga yaabaa dadka qaar inay saashadaan ama ay yasaan isbaridda ama self teaching-ka xilligan lagu jiro self teaching waa runtii aad buu muhiim u yahay ha ilaawin iskuulka xitaa markaad dhiganayso ama college-ka dhiganayso
still you are teaching yourself weli adaa isbaraya waa culayska oo dham aduu ku saaran yahay college-ka iyo iskuulladu ama jaamacaduhu sababta ay dadka uga qaadaan lacagta badan waxa weeye maadaama ay ku diyaarinayaan manhaj diyaarsan oo ama curriculum diyaarsan oo isku xigxiga that's the only reason lacagta badan ay kaaga qaadeen waayo adigu markaad isbar oo internetka wax ka baro waxa laga yaabaa inaad confuse ku qaado oo aad ku wareerto isla xagaad ka bilowda ma kanaad barataa dadka aaraadooda iyo afkaartooda haddaad dhegaysatana waxa laga yaabaa qof walba inuu wax ku ammaanayo oo qofku yidhaha kan baro qofku yidhaha kana fiican oo marka dambe isra waxoo dhan baro waxoo dhan haddaa isla baraan cilaad kusoo dhacaysa marka dambe marka the only reason ay college-ka iyo iskuulladu ay uga qaadaan dadka lacagta badan waa manhajka iyo curriculumka diyaarsan marka su-aashu waxay tahay haddaba sideen isu bari karaa web development inaad barato marka hore waxaan ognahay aqoontiisa inay free tahay oo waxaad ka warwaraysaa oo lacag ku xidhan aanay jirin computerkaaga iyo internetka kaliya inaad u baahan tahay markaas waxa ugu muhiimsan aad u baahan tahay waxa weeye qofku siiyo road map ama curriculum iyo manhaj sax ah ku halka ka bilow waxa ku xigsiya road map kaas u baahan tahay qofku siiyo aqoonteeda leh marka that's the only thing aad u baahan tahay waad ka maarmaysaa college iyo school toon inaad u aado insha Allah marka road map kana ana idin siin doonaa hadii la yiraahdo channelku wuxuu u furan yahay web development courses kaas inaan ka bixino hadii la yiraahdo web development waa laba qaybood oo waaweyn oo lagu kala takhasus leeyahay waa front end development iyo back end development marka insha Allah maadaama aan koorsada aan bilaabano waxaan focus ka saari doonaa front end development waa qayb dhan oo lagu takhasuso waxaan ku bilaabi doonaa HTML CSS iyo JavaScript kadib baan waxyaabo kale ku dari doonaa hadii la yiraahdo inta ka bacdi markaas aynu back end development u gali doonaa hadii la yiraahdo I'm really excited waa koorso aad iyo aad u xiiso badan oo gurigaaga ku baran karto waqtigaaga aad ku baran karto marka insha Allah I recommend you inaad barataan hadii la yiraahdo waxaan rajaynayaa dad badan oo xiiseynaya inay jiraan marka insha Allah si faafi oo gaarsiin channelkan uu cusub yahay ala support gareeyo insha Allah hadday tahay subscribing comment and share السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.